بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan bilaabaynaa qaybtaan cashar xoogaa isku xiga aljabrada ah. qofkii basic yarka ay yaqaana casharadan hadduu isku xirto aljabrada meel fiican ku gaaraya. marka kii koobaad waa 1 waa part 1 weeye. kani waxa weeye part 1 kan waa part 1 waayahay. marka waxaan ku bilaabaynaa wax leeyahay integers waxa loo yaqaanaa tirooyinka caadiga -1 -5 +5 10 11 sorry numberadaas waxaa loo yaqaanaa integers. marka waxaa ugu daran in kuwaas aad master garaysid isku darkooda kala goyntooda isku dhufashadooda calaamadahooda inay baratid. markaa baratid wixii ka dambeeya si fudud aad kugu fududaanaysa aljabradoodhan. casharkan koowaad marka hala soco isku xiro casharadoodan. example-lan ku sameynaynaa same sign waxaa waa isku calaamad. waxaan isku daraynaa isku calaamada kana ugu horeeya waxaan isku daraynaa -3 iyo -5 karaale hada qalinkaas -3 iyo -5 -3 iyo -5 hadaan isku darno waxay noqonayaan laba minus waa -8 laba waxa isku eg hadii la isku daro waa la isku darayaa calaamadaadana waa haysanaysaa day ka waa -3 kana waa -5 waa laba minus waa adigoo hoos jiray oo lacag lagu lahaa $3 baa shanka lagu yeeshay meeqa lagu leeyahay $8 ama adigoo bankiga wax ka dhimanahay lacag $3 ka dhimanid baa shan kale kaasi dhanta $8 baa lagu yeelay ama may ka dhaho adoo hoos jarajara hoose 3 goor u qaaday haddana 5 sii qaaday waa 8 tii waxaa la mid oo loo qori karaa isla taas oo kale -2 number 2ga -2 plus waxaa loo qoraa 6 -2 waxa hoos baa jirta 2 6 kala hoos aad meeqa hadan hoos jirta waa sidoo kale 8 baa hoos jirta. sida kale loo qori karo isla arinta waxay tahay in -2ga banaanka la dhigo 6 kana parenthesis la geliyo oo plus laga dhigo minus la geliyo asna waa isla sidii day dhowr siyaabood oo loo qori karo saddexdan waa dhowr siyaabood oo loo qori karo isla wixii day ama banaanka la dhigi karaa labada waa la matuxi karaa waxa la dhigi karaa hoos jira -2 baan -6 hoos sii aaday haddana waxa noqonaya waxaan hoos jira -8 saddexdaas aad u muhiim suuqa ekaysiiyay waxaan u ekaysiiyay in aragtid inta qaabo loo dhigo intaas wax badan baan ku isman gareynay almost 10kii dareynaa kan hadda -4 -5 baa jirta -4 waa -9 kan 6 + 5 waa wax isku ogaal nambarada taqaano la isku daray waa 11 kan hoos baa jirta 4 baa jirta hoos 9 baa hoos jirta kan labaad hoos jirta markaas 3 hoos gashay parenthesiga macna mal hadii la geliyo minusku banaanku yaalo waxa soo jirta 5 baa soo jirta. kan ku xiga waxa weeyaan different signs calaamadaha kala duwan ka waran hadii calaamadu kala duwan yihiin waad kala goynaysaa day waad kala goynaysaa 8 waxaad goynaysaa 5 waa 3 calaamada waxa qaadanaysaa lambarka weyn calaamadiisa lambarka weyn waxaan ka wadnaa isagoo absolute value ku jira calaamada hadaad tixgelin labada nambarkee weyn 8 ka weyn 8 muxuu wataa -8 bay noqonaysaa labadan way kala duwan yihiin 6 iyo 4 kala go horta 2 dheh keebaa weyn 6 ka weyn hadii calaamada la iloobo marka minuska asaga wataa waa -2 buu yeelanaya 6 iyo 7 ka weyn 7 ka weyn hadii la kala gooyo 1 bay noqonaysaa calaamada ka yeelanaya 7 ka kule plus ka badan kan ugu dambeeya plusyada minus 3 plus iyo 10 minus waxa weeye waa 7 minus ogow hadayna calaamad wadan sida halkaan oo kale ka waxa u qarsoon plus baa u qarsoon haye marka kan ku practice garee casharka marka ku practice gareysid oo ka shaqeysid mid kamid kan u dambeeyo kala di answerkiisa day waxa u maleynaysaa kan u dambeeyo kaliya sheegaya waa 6 bay ahayd oo 7 laga gooyo -3 bay noqotay -3 ga -3 kale yiri 2 minus waa -6 marka page kan ku xigaya ka fiir had xoogaa jooji marka page kan ku xiga aad ansarada fiir marka ka shaqeysid ansarada fiir ansaradii waa kuwaas halkaas ku jiraan halkaas aan kaaga tagayaa waa Dr. Botan oo kula wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad tiraahdaa Dr. Botan math baa la yiraahdaa channelka Dr. Botan waa ka khayr baan ku rajeynaya waka